doorashada in doorasho la aado waxa yacni ay haweenku soo geli karaan siyaasad waxay suurto gelinaysaa in ay ka qayb qaataan hoggaanka siyaasadda dalka laakiin waxay u baahan tahay in wacyigelin advocacy badan in la helo in laga dhaadhiciyo haweenka Soomaaliyeed inay dhexdooda isdoortaan ay matali karaan siyaasadda waddanka waxay u baahan tahay wacyigelin badan marka cilada waxay ka jirtaa haweenka dhexdooda aan fahamsanayn doorka ay siyaasadda ku yeelan karaan gabdhaha Soomaaliyeed marka taas la ajligeed waxay u baahan tahay in wacyigelin badan loo sameeyo gabdhaha inay isdooran karaan ay ku soo bixi karaan ama ay heli karaan numbarka ay markaas ayaga u baahan yihiin